madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo ku qayb galay munaasabad seher sare lahan agaasimi isla markaasna la ka abaalmariyay tartamyaalka degmada Buur-Hakaba ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo guul ku deeri tartan cilmiyeedka bilo barakeysan ee Ramadaan ku socday warbaahinta qaranka Soomaaliyeed oo ka tartamayeen dhammaan degmooyinka dalka. munaasabadii sidaas oo kale mid gubrookaya ku xigeenka koowaad gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiiro xildhibaanada lamada aqal iyo marti sharaf kale qaar ku mid ah tartamyaalka degmada Buur-Hakaba ma iyo gudbiyeen codsi hay intii degmada Buur-Hakaba lagu hirgeliyay jaamacad Sokorlanka qaada aqoonta bulshada degmadaasi. madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen iyo durba codsiga dhalinyarada ku jawaabi maynuusi sheegay intii degmada Buur-Hakaba lagu hirgeliyay doono jaamacad silindar dargeli horumarinta walbarashada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waa runtiis annaga hadduu ilaahay yiraaho dowlad ahaan iyo qof ahaan waxaan ballan qaadaynaa jaamacaddii degmada Buur-Hakaba xaqay u leedahay inaan jaamacadda dhisno hadduu ilaahay yiraaho afartii sane ee uu sheegay ka yar inaan ku dhisno insha Allah waqtiga iyo talagalka iyo xoogga annaga ay isugu geyno annaga oo kaashanayno dowladda dhexe oo xaq aan ugu leenahay inay naga gacan siiso arrimaha waxbarashada wasiirka waxbarashada joogo maxay ahayd haddii ilaahay yiraahdo ra'iisul wasaarahana waa gaarsiin doonaa abaalmarin bay noqonaysaa in jaamacad degdeg ah laga dhiso. munaasabadii hay'adda ontiga socoti hambali iyo bogaadin la ka daray tartamyaalka degmada Buur-Hakaba guulo taariikhiga ee hooyeen degmada iyo guutaan deegaanada Koonfur Galbeed. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wasaaraddiisa gobolaasi tartanka iyo hambaliyeen diri dhammaan tartamyaalka degmada Buur-Hakaba maynuusi sheegay intii munaasabadtan kuwiin iyo gobol doonaan tartamyaalka wan iyo guddoonsi doonaan koobkii ku guuleysadeen. runtii waxaa farxad noo ah oo runtii ammaanaynaa sida maaragtay qiimaha badan ee loo qiimeeyey dadaalkii ay dhalinyarada reer Buur-Hakaba sameeyeen ay ku qaadeen koobkii Ramadaanka tartanka degmooyinka iyo gobolada dalka ee uu qabtay tiimka qaranka. waa tartankii sagaal sano oo isku xigta ayay sidaa u socotay laakiin annaguna xafladda ka weyn oo insha Allah ka waqti badan si fiican oo hadda xogolada heeska laga gooyay wasiirada iyo madaxweynaha gudoomiyaha walaga sida sheegay dad badan baa tirtirsan xaflad weyn oo intaan ka weyn oo qurux badan tan kala soo qalqalso qurux badan lamida ayaan qaban doonaa dhawaan degmada Buur-Hakaba ku guddoonsiin doonaa koobkii ay qaadeen insha Allah ta'ala. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo dhambaal hambaliye iyo bogaadin andiri dhammaan tartamyaalka degmada Buur-Hakaba guuli iyo ku deereen tartankii ku socday warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. runtii sharaf ay tahay inaan ka soo qayb galno maanta xafladan dhiirigelinta ah ee lagu dhiirigelinayo ardaydii reer Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Buur-Hakaba ka soo jeeday ay ku qaadeen koobkii tartankii bishii Ramadaan loo qabtay degmooyinka Soomaaliya oo dhan koobkii ku qaaday guusha ku soo gaartay inaan ka qayb galno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa la sheegay horeyna waa loo sheegay dadka Soomaaliyeed waa yaqaanaan degmada Buur-Hakaba degmo qadiimi ah taariikh dheer leh dadka waxbarashada iyo cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka ah ay ka wada yimaadeen dad badan oo muctarif ah oo bulshada Soomaaliyeed laga yaqaan ay wax ku soo barteen haddana ay ku baranayaan oo taariikh weyn leh way degmooyinka Soomaaliya uguna taariikhda weyn leh. marka mar labaad iyo mar saddexaad dhalinyaradii degmada Buur u tartantay oo koobkan keentay aad iyo aad u mahadsantihiin. hambaliyo waxaan jecelahay haddii ilaahay yiraaho mar allaale iyo mar kasta oo tartan uu noqdo kuwii guuleystay inaan noqotaan. waxa maanta lagu tartamay
tartamada waa badan yihiin kubad baa lagu tartamaa ciyaaro kale lagu tartamaa aqoon baa lagu tartamaa wax lagu tartamo oo tartan lagu galo oo lagu guuleysto wixii ugu fiicnaa oo adduunyada loogu hormarayay aakharana dee loo shaqaysanayay yaad ku guulaysateen oo tartankeeda gasheen waa tartan aqooneed waxaa ku guulaysateen waxaan ilaahay ka rajaynaynaa aqoontaas iyo cilmigaas aad barateen oo Soomaaliya oo dhan ah kaga horeysaan inaad gaarsiisaan dadkii walaalihiina ahaa ka bilowdaan degmada Buur-Hakabo gobolka Baay koonfur galbeed Soomaaliya oo dhan ay gaartay intaas u dhaxaysaan aqoontiina marka waxay rajaynaynaa inay noqoto tii laga faa'iideysto waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahadceliyo wasiiradda biyaha wasiir Fawziyo oo runtii si guud mas'uuliyad guud isaga saartay tartankan iyo guud ahaanba xaaladaha waxbarasho oo ka jira koonfur galbeed sida mas'uuliyadda oo isaga saartay si arrintan u soo qaban qaadisay iyo dhiirigelinta ay tartankan gelisay wasiiradda aydan aad iyo aad ugu mahadsan tahay wasiir waa ku mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa wasiirada kale oo kula midka oo dhigaada ah ayagana inay dadaaladaas oo kale ay sameeyaan markay ugu yartahay khasaare ma nin walba inuu degmado uu noo taageero waa koonfur galbeed nooga mid Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha dowladda koonfur galbeed caasimadda Soomaaliya Muqdisho